Assalaamu calaykum. Waxay in badan ku weeraraan developerska farqiga u dhexeeya library iyo framework. Badanaana waxay u adeegsadaan si isku mid ah. Waana su'aal badanaa interview-ga la isku weydiiyo. Videogan waxaan si buuxda uga hadli doonaa farqiga dhabta ah ee u dhexeeya library iyo framework. Ugu horeyn, library iyo framework labaduba waa reusable code amaba code qof kale hore u soo qoray oo aad adiga isticmaalayso. Ujeedada loo soo qorayna waxay tahay in problem weyn oo code badan kaaga baahnaa si fudud ay kugu xaliyaan. Ugu horeyn, waa maxay library? Library waa code fara badan oo qof kale hore u qoray ood isticmaali karto si program kuugu fududaado. Waxaad soo install garaysan kartaa, soona import garaysan kartaa library fara badan sidaad rabto. Waxaad si buuxda u control kartaa sidaad u isticmaalayso. Library-yada waxaa ka mid ah React.js iyo jQuery. Tusaale, waxaad sameynaysaa calendar website kaasoo ay dadku ballamo ku qabsan karaan. Waxaad isticmaalaysaa HTML, CSS iyo JavaScript. Waxaad ku daraysaa taariikhda bisha, maalinta iyo isbuuca. Waxay kaaga baahanaysaa code fara badan iyadoo kaa qaadanaysa waqti dheer. Balse adiga ma ahid qofkii ugu horreeyay ee calendar website sameeya. Waxaa jira qof kale oo hore u qoray code-kan. Tusaale, calendar.js waa library kaa caawinaya inaad si fudud calendar ku samayso. Uma baahnid inaad code abuurto kaasoo kaa qaadanaya saacado ama maalmo. Waxaad kaliya akhrinaysaa documentationska library-gaas. Waxaadna si fudud u isticmaali kartaa library-ga adigoo soo install garaysanaya kadibna soo import garaysanaya. Caadi ahaan library-ga waxaa sameeyay in ka badan hal qof. Waxay ka ilaaliyeen errorska waxayna ku soo dareen features fara badan. Markaad isticmaalayso library, waxaad leedahay awood buuxda aad ku isticmaasho library-ga aad rabto. Waxaad isticmaali kartaa xilliga aad doonto. Waxaad isticmaali kartaa library-ga aad doonto. Waxaad u isticmaali kartaa halka aad doonto. Aan ka hadalno framework. Framework-gu waa group of libraries. Framework-gu waxaa dhisay team fara badan waxaana ku jira wax walbood u baahan tahay si aad application weyn u samayso sida templates. Frameworkska waxaa ka mid ah Angular iyo Vue.js. Aan ka hadalno farqiga u dhexeeya library iyo framework. Markaad library-ga joogto, code-ka adiga maamula. Waxaad go'aan ka gaari kartaa goorta aad library-ga isticmaalayso. Halka framework-gu asiga maamulo go'aanna ka gaaro halkaad code ka dhigayso. Wuxuu ku siinayaa goobo khaas ah aad code-kaada dhigan karto. Library-ga waxaad ku isticmaali kartaa projectyo hore u jiray si aad functionality ugu darto. Balse framework-ga kuma isticmaali kartid project aad hore u waday. Waxaad kaliya ku isticmaali kartaa markaad project cusub bilaabayso. Aan tusaale usoo qaadano gurigaaga iyo jaamacadda. Kaba soo qaad gurigaagu waa library halka jaamacaddu ay tahay framework. Markaad gurigaaga joogto, waxaad awood u leedahay inaad dharka meesha doonto dhigato, computer-ka halkaa doonto ku isticmaasho. Balse waxaa jira sharciyo sida dharkaada inaan suuliga dhigan karin. Balse sharciyada gurigaaga ku celinaya way ka badan yihiin kuwa jaamacadda ka celinaya. Aan ka soo qaadno jaamacadda inay tahay framework. Jaamacadda waxaad fadhiisanaysaa meel gaar ah. Waxaad computer ku isticmaalaysaa meel gaar ah. Ma lihid awood badan oo halkaad doonto ku fadhiisato. Haddii aan soo koobno farqiga muhiimka ah ee u dhexeeya library iyo framework, library-ga waxaad leedahay awood buuxda ood ku maamusho code-kaada. Balse framework-ga asigaa leh awood uu kugu maamulo. Framework-ga asigaa kuu sheegaya waxaad sameynayso, balse library-ga adigaa u sheegaya wuxuu sameynayo. Library iyo framework way kala duwan yihiin. Waxaan rajeynayaa video-ga inuu ku caawiyo.